xisbiga talada Somaliland haye kulmiye ayaa mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ku eedeeyay inaanay daacad ka ahayn qarannimada iyo jiritaanka Somaliland. xogayaha guud ee xisbiga kulmiye Ibrahim Ahmed Rabi oo la hadlay warbaahinta ayaa sidaas sheegay. Arrinta qarannimada Somaliland, arrinta madax banaanida iyo qarannimada Somaliland waxay ka tahay ay ugu jirtaa meel adag. xisbiga kulmiye haddaan nahay waxay arintaasu nagaga taala meel adag. haddaba waxa ayaan darro ah, waxa nasiib darro ah, waxa wax laga yaqiiqsooda ah in markasta hoggaanka xisbiga wadani marka noqoto arinta qadiyadda iyo madax banaanida Somaliland ay ka muuqato inaanay arintaasi arin aaminsanaantooda oo shaqo ku jiro oo ay ka muuqato in aanay marnaba liqsanayn madax banaanida Somaliland. waxa ka marxaatiya oo ku muujinaysa hadaladan soo noqday media la soo taagay hoggaanku markasta la soo taagan yahay qadiyadda Somaliland dibleer dalkan kuma helin ayaar kuma iman hadal kuma iman cid lagama baryin dhiig bay ku timid tacab bay ku timid sabir bay ku timid waqti dheer iyo waxa kulmay adduun dhan baa kulmay annaka waxa noogu muuqataa hadaladan soo noqonay hoggaanka ka soo baxaya wax uurka ugu jira guntiga ugu maran inuu markasta arabku ama afku ka hadayo waxa aad la yaab u leh gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro inuu marar badan fagaarayaasha isla soo taagay inaan wax munaasabad la yiraahdo 18 May inaanu aaminsaneyn maalinta qarannimada Somaliland waa qoon in tahay maalin qaran inaanu aaminsaneyn kun boqolaal jeer buu soo taagay media waxa kaloo maragmadoona xuska maalinta qarannimada Somaliland 18 May markastoo la qabanaya gudoomiyaha xisbiga wadani kama soo qayb galo waliba wuu ka dhuuntaa wuu ka muuqataa dalka uu ka baxaa xoogay khadar waxaad si dhalaana ku difaacaysaa gudoomiyahaaga hadallada gefka iyo lidga kuwa madax banaanida Somaliland ee markasta ka soo dhacaya ayaad adna media soo taagaysaa ku difaacaysaa waan dhageystay sharato waxaad ku hadlaysay waxa ayaan darro ah hadalladaada inay ku eriyo laga naxo oo gefku ah bulshada Somaliland qaybo kamid ah inay ka soo yeedhay adiga oo hadalkii hore u jeediyay wasiirka warfaafinta mudane Salaam Cali Koore adigoo isla u jawaab waxaad gef si bareera oo la kaca u soo jeedisay bulshada degta gobolka Sool waxa tiri waxay nagula joogan gunno iyo xil oo ayaan darro dhinaca kale xogayaha ayaa waxa uu fariin u diray gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro xisbiga wadani waxaan soo jeedinayaa inuu dib u eego inamada yaryar ee xogayaasha xisbiga ka dhigay runtii inamadaas badiyoodu waa qaar xaq aqoontoodu gaabantay waa qaar waalidkood aqoonta iskuulada kala qosteen marka anagu waxaan talo soo jeedinaa intaad iyaga oo inamadaas aanay tababarayn aad warbaahinta soo dirasaan inaad xagga waxbarashada ka caawsaan inaad jaamacadaha u dirtaan inaan annagu diyaar u nahay inaan jaamacadaha ka bixino oo waxbarashadooda dhisaan oo siyaasadda indhala'aanta ay ku soo gelayaan iyo ay u haystaan muranka iyo cugdada iyo imtixaanka inaan waxaan mustaqbalkooda wuxuu ku dhismayaa in waxbarasho loo diro. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV.